waddan aad u yar baaxad ahaan ahna kan ugu qanisan caalamka marka la eego dakhliga dadkiisa soo gala. dal leh keydka gaaska dabiiciga ee saddexaad ee caalamka ugu ballaaran, dalka ugu horumarka sarreeya waddamada Carbeed, dal marka dadkiisa iyo dhulkiisa la eego aad u yar haddana saameyn ballaaran ku leh mandiqadda uu ku yaallo. Ku soo dhowaada macluumaad ku saabsan dalka Qatar. jasiirad lamoodka Qatar waxa ay dhacdaa galbeedka Aasiya ama waqooyi bari jasiirad lamoodka Carabta. Waa dal baaxad ahaan aad u yar marka laga reebo jihada koonfureed uu xuduudda kala leeyahay Sacuudiga. Inta soo hartay waxaa ka xiga biyaha gacanka Bershiya. Baaxadda uu ku fadhiyo dalkaasi waa 11,000 oo kiiloomitir oo isku wareeg ah, waana in ka yar marka laba loo qaybiyo baaxadda gobolka Awdal. Waxaa ku nool dad gaaraya 2.6 milyan oo qof. dadka Qadariga ee u dhashay dalkaasi ayaa tiradaasi ka ah 11.6% oo u dhiganta 318,000 oo qof. 88.4% dadka waddankaasi waa ajaanib. Qatar waxay ka mid tahay waddamada dadkooda aad ugu yar yihiin ajaanibta la nool. Sidoo kale 94% dadka waddankaas ka shaqeeya waa ajaanib. Qatar waa dalka ugu qanisan caalamka. Waa dalka dadkiisa ay soo galaan dakhliga ugu badan sanadkii. lacag kor u dhaafaysa $128,000 ayaa qofka Qadariga soo gasha sanadkii. Sidoo kale dalka waa mid qiimeynta heerka horumarka aadanuhu aad u sarreeyo. Waxaa lagu qeexay dalka Qatar dalka ugu horumarka sarreeya waddamada Carabta. Waa dal dhaqaale ballaaran haysta. Waa mid hodan ku ah saliidda khaaska ahna gaaska dabiiciga. Waa dalka saddexaad ee keydka gaaska ugu badan haysta caalamka, kadib Ruushka iyo Iiraan. Tan iyo 2012 Qatar ayaa dalka ugu hodansan caalamka. Qatar dhaqaalaheeda kuma tiirsana kaliya wax soo saarka saliidda, balse waa dal maalgelin ballaaran ku leh daafaha dunida. In ka badan $100 bilyan ayay daafaha dunida maalgelin ahaan ay ugu leedahay dalka Qatar. Waxyaabaha Qatar ay leedahay ama ay qayb ka leedahay waxaa ka mid ah shirkadda baabuurta soo saarta ee agabkooda ee Volkswagen oo ah tan ugu weyn ee Yurub. Waxaa kaloo ka mid ah shirkadda Royal Dutch Shell oo ah shirkad soo saarta kheyraadka dhulka. Waxaa kaloo ka mid ah garoonka caalamiga ee Heathrow ee ku yaala London. waxaa kaloo qayb ka ah bangiga Barclays ee ku yaala UK. waxaa kaloo ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain ama PSG. waxaa kaloo ka mid ah bangiga Mareykanka, Bank of America. waxaa kaloo ka mid ah bangiga beeraha ee Shiinaha, Agricultural Bank of China, iyo boqolaal shirkadood oo kale oo aan la soo koobi karin. Dhammaantood waxaa leh ama qayb ka leh shirkadda maalgelinta Qatar, taas oo ah shirkad maamusha hanti kor u dhaafaysa $315 bilyan. waxaana shirkadaas iska leh dowladda Qatar oo sanad walba siisa hanti kor u dhaafaysa $40 bilyan si ay maalgelin ugu samayso daafaha dunida. Qatar sidoo kale dhaqaalaha kaliya kuma xoog badnaa, balse waa mid jaangoysa siyaasadda mandaqadeeda. Waa dal awooddiisu siyaasadeed ay muuqato. Waa dal awoodaha ku hardamaya bariga dhexe ee Mareykanka iyo Iiraan la leh xiriir aad u qoto dheer. Waa dal saaxiib la ah siyaasad ahaan waddamada galbeedka iyo kuwa barigaba. Sidoo kale dhanka warbaahinta ayay awood ballaaran ku leeyihiin. waa kuwa leh muuqaalbaahiye afka dheer ee Al Jazeera iyo muuqaalbaahiyaal badan oo Carbeed. Sidoo kale waa kuwa leh warbaahinno ciyaaraha baahiya oo dunida aad loogu daawado, sida beIN Sport iyo kuwa kale. Waa dal aad u horumaray dhan walba. Waa mid lagu tilmaamay inuu yahay dal qaab diimeed iyo mid aan diin ahaynba ku gala dalka uu damac ka leeyahay. Dal aad u yar dad ahaan iyo dhul ahaan ee horumar intaas la eg gaaray ma jiro caalamka ilaa Qatar maahane.